afartii sano dhaafnay wixii dhacay haddaan sheego maxay ahaayeen dhismo ciidan baan aragnay dhaqan maamul baan aragnay dhaqaalaha kobcaan aragnay wax dhaboo dhurlaan aragnay moogtaa ya kuwa dhacaya ciideenna sharafteena dhaamaya ii dhaaf dhulka anaa leh madax dhihi kartaa aragnay نبي وحن لا وفير صير مع الريال عدوجانو يولا الدرية والحلي مانو عدوك الصومالي يولا الدرية هيك فرماجو حدانو دودين حدانو الدولة نمقسين دفاع قرني مكجري دلكي دينتي ددكبا حدانو داعدو هين حدانو دلم ديدرين قبيالنا الدبر جرين شيء دول الله ما حيولا الدرية يا ما حيوجد دين دلكي سينو حكمه ما حيوجد دوديان كرسي جارو كدجو دنو قاقب سومي مالي دلكا الصومالي حلبانو هدارتي عدوغاغو إنو جو قرنكاغو نحقاغو وذاك مركل السوعي farmaajo madaxweyne isaga ku horiyo Soomaaliyeedna ma jirin madaxweyne isaga ka dambeeyay oo Soomaaliyeedna ma jiro dalkuna inuu burburahayo waa shakila aan hadii farmaajo ka tago maalinkii farmaajo la waayay Soomaaliyeedna waa ku diisay wakaasa مدحوينه سلامته هذا waxaa u diyaar cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga Soomaaliyeed madaxweyne waxaan cadeynaynaa oo ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inuu u dabaaldegay rabyo maalintiisii oo ah 12 Abriil ujeedo kale oo san wadan waxaan ahay dadkii dalka difaacayay waxaan ahay dadkii mataqaanay dhiigooda u horeeyay dalka ujeedo kale anaga aan wadan karno ma jirto أنا واحد من شيء واحد وقت ورا الموضوع قبيل يقل يقرب وهو راس الضبط واحد من قرب محارب أما أي سوق يده كو يبيان لوست يقراه محايا شرف واحد كلها هاي شلب ودنيا دي شرف كلها هاي لكن ما كي قبيلة يعدي دي واحد سوق اللي ساقف الإسبارديس ما كوير عددنا إسباردات ماشي غير كانوا يجوجينا عدوي غير كاجر وحكسين كانوا كليه ووحي أفرت سنة ما تضوات سنة سنة يكون ولا هي وأنا هرمر لهاي وهي واحد قبيل كلية مركب أول قادم أنت يو كلام سمي واحد أصب معها واحد أصب أو أن ألف لي أو أن إنفيشن كوسمين معها أنت هوري وضبط هوري سمية بان بوك تكججف وأن دب صونولين وهاي إن عيدك madaxa laga dhiso maskaxda laga dhiso waxa looga dhisayaa markaas madaxa ama maskaxda looga dhisayaa wadaniyada in lagu abuuro
maxaa yeelay waa in ciidankaani uu yaqaano waxa uu dhimanayo inuu yaqaano wuu yaqaanaa waa dhaqankiisa qabiil inuu dhinto waa yaqaanaa laakiin in la baro askariga waxa uu dhimanayo inay tahay waddaniyad iyo waddankiisa wax ka weyn waxa uu yaqaano inay tahay in la siiyo xuquuqdiisa loo dhammaystiro xuquuqdiisa si xuquuqdiisa loogu dhammaystirana waa in la diiwaan geliyo saad og tihiin sana iyo bar kadib yaan meeshaan imid oo aan joogay usbuucyo aan joogay si aan u baaro waxyaabaha naga hadlaysan maxaa yeelay askartii aan mushaaharaadka siinayna ma gaarayso tayadii ciidankii ma fiicna isku xirnaanshihii saraakiishii iyo dablaydiina ma fiicna waxaan gartay marka inaan meeshaan u soo dego oo aan baaro cilladda meeshay ka jirto cilladda waxaan ogaaday in uusan jirinba hal gal file oo ciidanka leeyahay in ciidankaas hadduu tago meel laga raadiyo aan la aqoonin inta isla joogto keliya istaqaana meeshaas waa meesha uu ka bilowday in aan samayno biometric iyo diiwaangelin meeshaan ka bilaabno meeshaas wey waad ogtihiin markaan bilownayna dhibka iyo wixii naga qabsaday iyo ciidankii runtii miitiniga sameeyey oo gadooday oo qaarkood garan lahaayeen oo biometricgii aysan gaarin iyo fingerprintingkii qaarna ay diidanaayeen systemkan cusub anugu waxaan qabaa rajo fiican meeshaan u soconno waxay tahay soomaaliya oo nabad hesha yaan u soconnaa soomaaliya barwaaqaan u soconnaa soomaaliya oo noqota waddamada aan sheegay oo horumartay yaan u soconnaa soomaaliya oo aan u kala qaybsanayn qabiilo yaan u soconnaa soomaaliya oo nidaam iyo dawlad fiican heshay iyo sharci iyo kala dambeyn yaan u soconnaa waxaan u soconnaa soomaaliya oo sharaf leh yaan u soconnaa Markale. lama adabiga doolka baduya dabaylaha luli markay dhaqaaqa laydhala geeri gadigoo la geeri uga dhaharsani hurda la'aan ma joogto aanu lixda eebba uu isii kuwa naceebka la haraaqaya bagta uma dhigo liiskooda ma furo lulumada biyaha dusha ka saara lama dhaansado lamana dhadhamiyo dibintaydana loo yar uma baano laaclaac iyo lafdin uma baano nin naftiisa muray faagtaan uma baano nurani baan ahay leylkii baan duuraa laas qoray baan shida nala joogtay bax shida naga bax shar soo socota deyran insha allah shuushkeennuna waa shafeecu laahi shimbirkii nabade jalayta buubtay shuuta u soo deg si kastaan yeelay waa la hadlay magacyada soo dira adduunkaan ugu cebeynina shacabka soomaaliya aysan qalbi jabin idinkaa waxaan samaystay wixii aan rabay waa iga soo kaxayseen intaasoo jeer iyo tanaasul idiin sameeyey waxaan ummadoo dhan baa arkaysee magacyada keena horeyna aan wadno wixii khalad ah ku jirana annagoo soconno oo uu socdo doorashada socoto hala soxo waa la diiday waxaa diiday puntland iyo jubbaland nasiib darro sebtembar 17 heshiiskii ahaa oo iyagu qorteen oo ay saxiixeen oo idinku aad u ansixiseen anoo og intiina badan inaydan raalli ka ahayn haddana nasiib darro
waa diideen haddana waa diideen markii dhul shisheeye lagu xidhay xabsiyo dhaadheerna lagu guray adaa dhoofoo ka daba tegey adaa dhallinyaraadii soo furay aniga farmaajo in mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad la doorto waan rabaa garow waan joogaa aniga hooyo ganacsataa baan ahay kaashkan ku ganacsan jiray kaashkii baan waayay mar raba inaan nin mucaarado mar raba inaan cid wax ka sheego laakiin dadka Soomaaliya aqal waa leeyihiin mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad inkastoo Soomaaliya aqal ku shaqeynay dib u dhigis Soomaaliya la isku doorto ma garanaysaa oo mid markuu xogaa hore u dhaqaajiyo hadda Sheekh Shariif markii la doortay oo madaxweynaha noo noqdo waxaan isleeyahay madaxweyne fiican baad hesheen way ahaan weyday macnaha waxa la arkay Sheekh Shariif Soomaaliya xogaa inuu hore u dhaqaajiyay labada lugood baa lagu dhigay kii dhulka la galay oo dacsada ka dhigay baa dib loogu dhiibay hadda farmaajo hore u dhaqaajiyay waliba si fiican haddana waxa la rabaa mid dhulka la galay in la doorto macnaha waxaan leeyahay ilaahay ka baqa ma garanaysaa waxa skartu idin soo dhikarku idin dilo cuqubada idin kugu dhacdo qaraxyada idin leeynaya waa cuqubada Soomaaliya ka gashay Soomaaliya kii wax ugu yaala doorto waa doorto oo farmaajo marka la fiiriyo 6 qodob waxa xaqiiqo ah in madaxweyne farmaajo uu yahay madaxweynihii ugu dimuqraadisanaa ee dalka soo maray xilliyadii dambe marka koowaad madaxweyne farmaajo waa hogaamiye si dimuqraadi ah loo doortay oo aan xukunka ku imaan si sharci darro ah isla markaasna haysta taageerada shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha dastuuriga ah ee dalka madaxweyne farmaajo ma jirto qodob dastuuri ah oo uu ku xadgudbay ama awoodiisa sharciyeed ku kordhiyay marka saddexaad madaxweyne farmaajo marnaba ma muujin inuu doonayo xukun dheeraysi iyo in talada dalka uu ku sii haysto marmarsiyo sida ay sameeyaan madax kaligood taliyaal ah oo ka jira dalalka qaar madaxweyne farmaajo waa madaxweynihii qorshayaasha doorashada iyo sharciyadii dalka uga tanaasulay dalabka mucaaradka iyo dowlad goboleedyada dalka marka shanaad dowladda uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo ma laha habdhaqanka kaligii taliska oo ay ka mid yihiin caburiska shacabka saxaafadda iyo xayiraadda cabiraadda hadalka sida dowladda hadda jirta loo mucaarado kama jirto meelo badan oo ka mid ah dunida iyo xataa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah tan ugu dambaysa waxaa tusaale fiican ah in madaxweyne farmaajo uu si cad u sheegay inuu kursigiisa uga tanaasulayo walaalaha Somaliland haddii lagu helayo midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed qof kasta oo si madax bannaan ama aan iyo qof jeclaysi ku jirin wax u qiimeynaya wuu og yahay in madaxweyne farmaajo yahay hogaamiye sida ugu wanaagsan ugu adeegaya dalkiisa iyo dadkiisa isla markaasna uu ka fog yahay dhammaanba sifooyinka xun ee kaligii talisnimo